السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي wanaagsan idin haantii meel kasta joogtaan waxaan idin rajeynayaa wanaagsantiin nabad qabtaan caafimaad qabtaan insha Allah tacaala caawa waxaan bilaabanaa barnaamij aan ugu magac daray business talk aan kaga warrami doono arrimaha ganacsiga iyo arrimaha financial literacy-ga iyo entrepreneurship-ka saddexdaas ayaynu kaga warrami doonaa insha Allah tacaala caawa waxaan markaa ka wada sheekeysan doonaa oo buduga dhigadana ka warrami doonaa waxa loo yaqaan business system systemku Soomaaliha waxa ku noqonaysa nidaam ganacsiyeed waa maxay markaa business systemku waxa weeyaan business kasta oo jira waxa uu leeyahay oo successful ah oo muddo jiray maaha markuu ganacsiyada qaar marxaladaha madama business ay kala xilliyeed jiro marxaladaha ganacsigu maraan ka bilowmata marka ganacsiga la aasaasay ilaa decline-kiisa ganacsiyada waaweyn jira successful kahay waxay leeyihiin waxa loo yaqaan business system kaasi waa system waxa la oran karayaa waa procedure ka bilowmaya ganacsiga bilowgiisa ilaa dhamaadkiisa waxa la oran karayaa waa road map hadday noqoto inventory management system ka hadday noqoto supply chain and logistics ka wax walba operation ka business ka dhexdhacaya wax walba waa systematic waa standard wax la yaqaano oo qofku haddii qofka maanta manager-ka ka ah uu meesha ka baxo qof kale yimaado qofka kale uu dabaqi karayo uu fulin karayo maxaa uu faa'iido leeyahay business systemku markaa haddaynu soo sheegno operation-kii business-ka qayb ka tahay systemka ganacsiyeed waxa uu faa'iido leeyahay efficiency-ga ganacsiga ku xidhan oo ganacsigaas inuu ganacsi efficiency loo shaqeynayo noqdo ayaa ku xidhan waxa ku xidhan productivity-ga ganacsigaas inuu ganacsi wax soo saar la noqdo waxa ku xidhan cost enhancement wax loo yaqaan inuu cost-kaaga inuu fadhiyo cost-kaaguna wuxuu ka qayb yahay cost-kaagu inuu fadhiisana wuxuu ka qayb yahay kobcitaanka ganacsigaaga oo waxa isku xidhan cost-kaaga cost-kaaga haddaanu fadhiin price-kaaga ma fadhiyo price-kaaga haddaanu fadhiin profit margin-kaaga ma fadhiyo intaad faa'iidaysa ma fadhido marka guud ahaan intaas ayaa business systemku uu ka warramaya qaybo fara badan buu leeyahay oo saan hore usoo sheegay waxaa jira customer care management system baa jira oo waxaa jira waxa loo yaqaan supply chain and logistic management system baa jira waxaa jira marketing system baa jira waxaa jira operation system baa jirta modelada ay ganacsiyadu isticmaalayaan way kala duwan tahay matalan ganacsiga service-ka ka shaqeynaya wuu ka duwan yahay ganacsiga product ka shaqeynaya oo ganacsiyadu labadaas badan ka shaqeynaya waa ganacsi badeeco iibinaya waxay doonto badeecadaas oo ahaato ama ahaato renewable oo dib loo cusboonaysiin karayo ama ahaato mid markaa one time use sidoo kale waxaa jirta ganacsiga qaybta kale ganacsiga wax loo yaqaanaa laga ganacsiyo service-ka oo adeeg la qabanayo qofkaas macaamilka adeeg loo qabanayo marka system-kuna way ku kala duwanaanayaan oo ganacsiga adeega keliya ka shaqeynaya waxyaabaha xooga saaraya waxaa kamid ah waxa loo yaqaan marketing strategy-ga iyo waxa awood saaray customer care-ka iyo inuu qofkii macaamilkiisa inuu had iyo goor aale inuu ka warhayo dadku tusaaleyshi ku fahmaan markaa saynu isula fahno waxtarka uu leeyahay business systemku waxaan soo soo qaadanaynaa mid ka mid ah shirkadaha adduunka ugu waaweyn ama food industry-ga marka la joogo ganacsiyada ugu waaweyn waa McDonald waa waxa loo yaqaanaa fast food revolution company waxay ka mid tahay haddaanay number one ba ahaynba fast food-ka ganacsiyada ka jira ganacsiyada ugu tunka weyn leh uguna faa'iidada badan leh ayay ka mid tahay waxyaabahay halkaa ku gaadhay waxaa ka mid ah waxa loo yaqaana business systemkeeda ayaa business system fadhiya ah waxay harta ku shaqeysaa waxa loo yaqaana franchise model bay ku shaqeysaa laakiin franchise-ka waxyaabo fara badan oo ka raaca baa jira sida loo yaqaan sida real estate-ka oo kale inay ku jirto janibka real estate-ka iyo hantida maguuraanka inay ka shaqeyso laakiin waxaan oran karaynaa waxyaabaha ay halkaa ku gaadho waxa ka mid ah business waayo tusaale ahaan iminka markaad u fiirsatid McDonald waxa ay iib geeyaan horta waxa weeyaan fast food hadday noqoto hamburger hadday noqoto fries sida chips oo kale iyo milkshakes iyo waxyaabahaas ay iibiyaan waxyaabaha markaad eegtid worldwide maanta McDonald waxa laga yaabaa Mareykanka inaad ka hesho Australia inaad ka hesho labada dhif adduunka
inta u dhaxaysan inaad ka heshid Africa inaad ka heshid Asia badankeeda inaad ka wada heshid waxyaabaha ay ku soconta waxa kamid ah hamburgerka Mareykanka yaala iyo hamburgerka Australia yaala waa isku standard khudradda lagu ridayo iyo beefka hilibka lo'da lagu ridayo waa isku mid tastiga dhadhanka wax laga yaabo inay ku kala yargadisanadaan oo la tixgeliyo la ictimaado local tastiga ama dhadhanka wadankaas la joogo maanta inagu dhadhan baynu waxyaabaha dhadhan u naqaanaa oo aynu ka helnaa dhadhankooda hilibka si gaar ah aynu karsanaa baradhada si gaar ah aynu samaysanaa khudaarta si gaar ah aynu samaysanaa marka local tastiga iyagoo ictimaadaya laakiin haddana mar walba waxaan ka leexanayn wax loo yaqaan standardkooda in wuxuu standard yahay waxyaabaha xooga saaran waxa kamid ah marketingkooda iyo brandingkooda waa isku standard waxay bixiyaan waxa loo yaqaan franchise waxa lagu qiyaasaa boqolkiiba 93 McDonald waxa iska leh owners baa iska leh local owners baa iska leh baan leeyahay local owners ayaa iska leh waxa iska leh matalan iminka Australia McDonald's ku yaala ama magaalada Sydney McDonald's ku yaala waxa iska leh rag Australian ayaa rangareeya iyagu waxa McDonald's reerkii waxay ka qaadaan waxa loo yaqaan subscription fee bay ka qaadaan oo franchise-ka lacag bay ka qaadaan fee bay laga qaadaa bishii sanadkii waxay doontaba ha ahaato laakiin fee baa la qaadaa franchise-ka sida normalka marka waxyaabaha McDonald's uu ku gaaray halka waxa kamid ah waxa loo yaqaan business system-ka oo business system fadhiya ah haddaad u fiirsatid dadka wax ka cunay wada garanayaan haddaad u fiirsatid qaabka xitaa lagugu adeegayo supply chain-kooda iyo logistic-kooda qaabka wuxuu xidhan packaging-kooda wuxuudu wada standard meelan marka ganacsiyadan hadday marka waaqicayna u soo noqono ganacsiyadeenu waxyaabaha ay ku liitaan waxa kamid ah wax loo yaqaan business system-kaas aan lahayn ama way yaryihiin ganacsiyada leh ganacsiyada ka soo talaabay nus qarni inoo jira waa ganacsiyo ankarno ganacsiyada ku guuleystay inay business system yeeshaan waayo ganacsiga nus qarni wuxuu uga soo gudbi karayaa marka uu leeyahay system iyo istaraatiijiyad qoran oo cid walba isla ogtahay oo qof walba oo yimaada ganacsiga uu dabaqi karayo laakiin waxa hadda noqoto wax qof kaliya maamulayo qof kaliya og yahay qaabka uu shaqeeyo waxa qofkaas wuxuu ka mid yahay asset-kii company-ga ama business-ka asset-kiisa Soomaalinta uu dhibisheed garoweed qadar baa dhici kara qofku dhiman karaya wuxuu doona qofku dhici kara uu retire garow karaya waxa weeyaan waxa ku dhacaya ganacsiga inuu decline inuu hoos u dhaco hoos inuu dhaco ku dhacaysa marka waxaad arkaysaa iminka supply chain-keena tusaale markaan soo qaato supply chain waxa weeyaan haddaad barodha ka ganacsanaysid barodhagaad ka ganacsanaysid cidda supplier-kaaga ee wax ka soo iibsanaysid ayaa loo yaqaan supply chain and logistics marka supply chain-keena tusaale markaan soo qaato iminka sistemadooda ganacsiyadeena inta badan ma fadhiyaan waayo iminka marka alaab aad ka dalbanayso soo qaado waxa ka dalbanaysa Dubai baad ka dalbanaysa ama China ka dalbanaysa ama Turkiga baad ka dalbanaysa waxa laga yaabaa alaabtii inay kala go' ku dhaco kala go' maxaa keenaya waxa keenaya waxa weeyaan supply chain and logistics baan fadhiyin waayo waxa laga yaabaa maanta in lagu yiraahdo bilbo cargo ga qaadanaya deetana uu soo qaato bilyan ama 2 bilood uu iska qaato marka guud ahaan intaas business system-ka loo ayuunba ka wada share garan karnaa ka wada karnaa laakiin business system-ku waa jaanib aad iyo aad u ballaaran guud ballaaran u baahan in la daraaseeyo in la barto ganacsiyadu inay aad ugu dhuma yeeshaan ganacsiga aad ka shaqeynaysaa waa ganacsi aad ugu tala gashay in laga dhaxlo marka hore marka juhdi badan gali maanta waay Bill Gates iyo ragga ugu tunka weyn ganacsiyada adduunku ay inta ganacsigii faraha ka qaaday ganacsigoodii ay waxyaabo kale oo charity waxyaabo kale iskaga mashquulaan muxaqqiris Allahumma salli ala Muhammad cilmi waxyaabo kale iskaga mashquulaan waxa weeyaan sababtu waxa weeyaan businesskooda system fadhiya leh oo ay ka nasan karayaan ay og yihiin 5 sano 10 sano 20 sano 30 sano 40 sano 50 sano soo socda inay adeegi karayaan haddii ay business system-ka istaraatiijiyada ay dabqaan business system-kaagu waxa kale oo ku jirta wax loo yaqaan haddii pandemic kugu yimaado ama natural crisis haddii kugu yimaado qaabkeedu uga gudbi lahayd iminka for example coronavirus-ki pandemic buu ahaa McDonald's iyo shirkado badan oo fast food ayaa ka baxay saaxadii suuqa waxyaabaha ay McDonald's iyo shirkado waaweyn uga bixi waayeen suuqii waxa ka mid ah innovation-ka iyo inay la qabsi ay u leeyihiin istaraatiijiyada business system-ka la qabsi u leeyahay inay waxyaabahaas ay yimaadaan inay ka dabaashaan
intaasaan jeclay marka caawin la wadaago barnaamijku waa barnaamij soconaya saddexdaa qaybood aan kaga warramaya financial literacy oo kobaca dhaqaale iyo qofka dakhliyaadkiisa wixiisa entrepreneurshipka iyo waxa loo yaqaano hal-abuurnimada iyo business systemka waxaan leeyahay business waxyaabaha ku saabsan arrimaha ganacsiga arrimaha ku saabsan inaan kaga warrano isaan jecel inaan kusoo gabagabeeyo muuqaalkan haddaad ka heshay la wadaag asxaabtaada barnaamijkan sidoo kale haddii aad fikrad haysid waxyaabaha aynu kaga warrami karayno fadlan xagga commentiga igula wadaag isaan jecel inaan kusoo gabagabeeyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu